سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس والله الفيك كم والله وجيبينا أيا التيم هو كنا نتابع ما شاء الله أيها اليوم سلاكة من قلبي رجعا سلام النبي صلى الله عليه وسلم أولي هاي اسكو سلامة وجعلان إنسان سلامة أهل الجنة سلام سيدنا حريص إلى بالكليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا هذه السلام ما شاء الله تعالى والله آدي الموقف أحسن هاي ما أنت إن أنجولو قلبي صوماليا موغاديشو حتى إذا لا نذكرك والله إن أنجولو ولا لهيك أن جعلها حلي وانسيحا وايي وأن آمين وايي إن أن لكل مدومو أن أكي دومو ولا لهيك أن جعلها sidoo kale waxa la ii sheegay waxay tahay in ay jiraan dad badan oo banaanka yaani taagan ayagana waan ka raali gelinaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantiina haydin xifdiyo aamiin inta kid aniga holan jooga waxa muxaadaraan jeediyay muxaadarada markaa dhameeyay waxaan sheegay waxay tahay in aadayo Soomaaliya dad badan baa sabir ila galay waxay dhahan waxay tahay ku macsalaameynaa يعني إن أوصل على عمل قبرية يعني أنا أسمع حيبه يعني قبضه بمكة يقول على الصومالي أوصل على الوكلية نتصدى على 100 معدي يروح لمدة هذا نكتي أن هذه محاضرة ماشي بقبتي لبكون إن كبر أن يكقد جلان تجيب أيام مرة بقب مكة أو شيء الوكلية هاي أو بكرة واستيلاء لأني يروح لمدة كدب أنا كينيا جوجو هل كان أوصل صعوده هو يعني هذا هو هذا الوحيد هاي بنان كاسو صعون إسرائيلي وابسين حيث جاءت مكة فولينا وحنسا يبسيعلي معروف مثلا هل كان إمد واحد سبك أنك هايسي يوحى أنك من سنة وحكد دوان أيان أكي قروح إذا موقتيشو والله زيارة أنا وصار مكان أكي بدأ بلوغة يو هيدا سمدة أو بلوغة يعني تايا سوجيت مكان سوجي والله إنك بلا صدق بلا يا مصفري درينك أن دريني معاك هيدا مثل أهمان درين من أدوك أعطن waxay ku tusinahay waxay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmo badan barwaaqo badan buu ina siiyay wallahi waxa dareemi kara in waxay tahay qofka marka halkan uu ka tago ilaahayna wuxuu leeyahay wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hadaa hada nicmadooyinka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan soo koobaynaa ma soo koobi kartaan buu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay allah naga dhiga nicmadooyinka oo dhan kuwa ka faa'iideysta aamiin doonaya adduunyo cilmiga ha ku dadaalo aqoonta qofkii doonaya aakhiro ha ku dadaalo cilmiga qofkii labada isku doonaya ha ku dadaalo cilmiga sababtu waxay tahay maanta annaga haddaan ku mashquulno cilmiga waddankayna ama dhallinyaradayna waxay noqonayaan dad maskax ahaan u horumaray maskaxdooda markay horumarto dhaqankooda fikradahooda wuu hagaagayaa haddii aan rabno in aan is-horumarino waa inaan fikraddeena hagaajinaa number 1 midda labaad badanaa maanta waxaa caalamul islaam yani guud ahaan wadamada muslimiinta Soomaaliya ay ka tahay yani dhibaatada ugu badan ka jirta waxaa ka mid ah in diinta oo dhan aan u fahanay salaada soonka zakada iyo xajka oo kaliya
laakiin dhinaca dhaqanka ama habdhaqanka bani aadamka sidoo doonta ha naqato inaan tuurnay aanba u haysano wax aysan waajib ahayn. ilaahay siduu salaada noo amray wuxuu inoo amray inaan runta sheegno. waxaa laga yaabaa salaada aad ka tagtidna maanta geshid hadal been aad sheegtaan qof aad dhibaato u samaysayne inaad naar ku geshid waa isku mid og. waxaan dhihi karaa waxay tahay qof kastoo doonaya farxad ha hagaajiyo dhaqankiisa. habdhaqankaaga hagaaji haddii aad farxadaada. jazaakum allah. يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه